تعال halka isugu keenay mar labaad waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa kootadaan in badan saadaalinaynay ay noo ansixiyeen waxaan halkan fariin uga dirayaa golaha guurtida iyo baarlamaanka waxaan leeyahay golaha guurtida iyo baarlamaanka waar meesida wararka hadho wax yar bay idin hadhay taariikh kaga taga oo dumarka maanta kootada marka la idin keeno ansixiya idinkana markaas aanu idin ansixin doonaa marka wax nooga baahata waayo dumarku wax weeye markii hore waa lagu guuri jiray laakiin maanta guurimaadku way ka baraarugeen waayo waxaan ogaanay golaha deegaanka labada dumarkee noogu jira inay ragga nooga fiican yihiin waanu ka qatanahay goobaha kale oo dhan baar baa ka taraxda baar maxay awood leedahay waa shakhsi inta kale Allah ku dhufanaysa waxaanu doonaynaa marka inaan ku yeelano quwad golaha baarlamaanka oo ay noo noqdaan haweenku inay ragga ka horeeyaan aad iyo aad baan ku rajaynayaa inay kootada si fiican ugu soo baxaan waxaan leeyahay Saleebaan iyo baashe dadinka midda daabka haya baarlamaanka iyo guurtidii ku jiiday marka codka doonaysa waa tad doonaysa raggaadi kala jiidanayseen maanta waxaan ka rabnaa inaad noo ansixisaan sida madaxweynaha iyo ay wasiiradu noogu ogolaadeen nagaadna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waayo in badan ayay dhexda u xidhnayd 10 jeer baa lagu soo celiyay oo kootada la diiday nagamay caajisinin dumarkay danaynayaan waxay rabaan dumarka in ahmiyadooda soo saaraan wali dumarka inay baarlamaanka tagaan bay ahayd guurtida iyo baarlamaanka ay mudaharaad sameeyaan way naga yara hoostay waanu sameyn doonaa insha Allah bismillaahi kariim dumarka quwadeeda haday idinku soo jeesato rag waa fadhiidin ma yaalo gobolka Sanaagna waxa lagu tashadaa ragga imaanaya markay noobeena ku beer la xawsanayaan maanta waxaanu doonaynaa inaad noo soo saartaan anaguna ma naan war dumarkayga soo saarnaa Allah wallahi waarun qabiilada ku kala xataan qabiiladii waanu ka kornay maanta waxaan rabnaa haween gobolka Sanaag inta ugu firfircoon inaanu soo saarno waliba anigu waxaan u taaganahay inaan sharaxaada baarlamaanka aan isu taago hadii la yiraahdo haddaan calaf ku yeesho hadii kalena inta calaf ku leh aanu sii taageerno aad baan idinku mahad celinaya doorantahay waa xildhibaanad waxaan u yeerayaa Farxaan Axmed Guray oo ah gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga u cid ee gobolka Sanaag aad loo soo dhaweeyo